Usbuucan, Mareykanka iyo Jarmalka waxa ay bilaabeen howlgal lagu cabirayo biyaha dhulka ku jiro iyo kuwa dulsaaran. Marka la ogaado, labada dayax gacmeed waxay eegayaan kala duwanaanta cufka. Saynis yahanada ayaa taasi ku ogaanayo sida barafka uu u samaysmo. Howlgal hore ayaa muujiyay degdega uu u sii dhammaanayo barafka Greenland iyo cirifka dunida. Amazon ayaa difaacday tiknoolajiyadda garashada wejiyada kadib markii ururada xuquuqda rayidka ee Mareykanka ay sheegeen in software-ka shirkadda uu u shaqeynayo sida dabagalka maamulada. In ka badan 40 urur ayaa shirkadda warqad ugu sheegay in qalabkan uu yahay mid xadgudub ah. Amazon ayaa software-ka ku tilmaamtay ka hortagga dembiyada, garashada dadka caanka ah iyo badqabka bulshada. Facebook ayaa macaamiisheeda Britain weydiisanayso inay u diraan sawirro cawradu muuqato si looga hortago sawirrada qawnida ah ee qofka kale ee la baahiyo. Waxaa loogu talagalay dadka ka baqaya in sawirkooda oo aan fiicnayn ay dad kale baahiyaan oo baraha bulshada la geliyo. Sawirrada loo diro Facebook ayaa loo adeegsan doonaa in laga hortago muuqaalada kale oo la joojin doono ka hor inta aysan barta ku baahin. Markanna ma u malaynaysaa in bootintanna ay hal shaqo u badbaadisay kacaanka robodka? Mar kale u fakar sida machadka cilmi-baarista ee Disney uu muujiyey. Ninka usha waa robot hawada isku rogrogi kara. Waxa uu isticmaalayaa dareemo, cabirka masaafada iyo aragti kombiyuutar ah si hab aan caadi ahayn uu ugu caga dhigto. Waa qaab aad u wanaagsan.